بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 687 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف براكية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 4 bishii 9 Ramadaan sanada 1443 isla markaana waafaqsan 5 bishii 4 sanadka 2022. waxaanu ku jiray mawduuceeni ramadaanka iyo axkaamtiisa iyo fadaaishiisa iyo wixii ku saabsanaa. qaybtii u dambeysay baan maanta soo xidhayna oo ku saabsanayd alixsaanu ila ducafaai walmasaakiin, ixsaanka loo sameeyo dadka ducafada ee tabarta yar iyo masaakiinta iyo wixii ku saabsan. ilaa 6 xadiid ayaanu mawduuca keligii kusoo qaadan, alixsaanu ila ducafaai walmasaakiin. haddaanu sii wadno mawduuc dhammaanaymo. xadiidkan waa kii 7 oon kusoo xidhan. waxaan ka cudur daaranayaa walaalaha aanan ka raaligelinayaa baaqashadii shalay uu naga baaqday mashquul iyo arrimo uun dartoodan ku mashquulay. marka waad raalli ahaanaysaan. intaa kadib xadiidkeenana maanta ku gebagabaynayna bukhaari muslim baa soo saaray. waa xadiid muttafaqu caleyh wey. xadiidkan wuu dhaafsiisan yahay alixsaanu ila ducafaai walmasaakiin, bal wuxuu xadiidkan xumbaarsan yahay alixsaanu ila alxayawaanaat. hataa xayawaanaadka makhluuqaadka ilaahay hataa kuwa ugu liita qiimaha badan aan lahayn, ixsaanka loo sameeyey wanaagga inuu qofku darajo dheer ku gaadhayo. idan kulamaa ixsaankaadu u gudbo makhluuqa ilaahay, waxaa weeyaan aad iyo aad bay u qiimo badanta. xadiidkan qiso cajiiba ayuu xumbaarsan yahay. xadiidka macnihiisu muxuu yahay? abu hureyra wuxuu leeyahy radi allahu tacaala canhu wa ardah, nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: baynamaa waqti kalbun ay yudiifu uu wareegahayo birakiyatin ceel uu ku dul wareegahayo kaaduu u dhow yahay aygaas yaqtuluhu inuu dilo alcadash on. idra'atu waxaa aragtay aygaas wareegahaya ceelka dushiisa on halis ugu jira inuu dilo. idra'atu waxaa aragtay bagyun naag jidhkeeda iibsato min baqaaya bani israa'iil, reer banu israa'iil haweenkooda xunxumaa jidhka iibsan jiray mid ka mida ayaa aragtay. fanasacad waxay siibtay muuqaha, khufkeedii iyo shuraabadii sigsiyaantay qabtay siibtay. fasaqatu way waraabisay, fagufira laha bihi. taas sababkii baa loogu dambi dhaafay. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan waa xadiid cajiiba wey. wuxuu ku tusinayaa raxmadda ilaahay waasacnimadkeeda iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala camal yar oo laakiin taya leh inuu dunuub waaweyn oo kabaa'ira uu ku dhaafi karo. xadiidka wuxuu xumbaarsan yahay iyo khulaasadii wuxuu noo sheegayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam qisadan ayuu saxaabada oga sheekeeyey. waqti awqaadaha ka mida ayaa ay aada u ooman ayaa ceel dul yimid. ceelku waa ceel uusa geli karin oo ka cabi karin. ceelkii oo dul warwareegahayo oonna aada u hayo inuu oon dilo khatar u saaran yahay ayaa naag xun oo naagaha jidhkooda iibsada. bagyun min baqaaya bani israa'iil bali. baqyigu waxaa layihahdaa haweenka jidhkooda iibsada xunxun baa layihahdaa. dicaaraadka xunxunka ayaa layihahdaa. naagtaas zinada waad garanaysaan, kabaa'irta waaweyn bay ku jirtaa zinadu. marka naag waxaa ku jirtay ayaa waxay aragtay aygii oo ceelka ku dul wareegahaya oon aada u badan oo khatar inuu dila khatar u yahayna haya. naagtii xumayda jirkeeda iibsatay ee zinada iyo waxaa ku dhaqmaysay ayaa waxay iska siibtay sigsiyaantay lugaha ku qabtay. muuqa waxaa layihahdaa waa qufka wey, waa waxyaabaha lugaha la gashada wey, sida sigsiyaantoo kale wixii ku saabsan. wax kaloo aalla ay biyihii kusoo qaada mayna haynin. markay kaa muuqa ay siibtay, qufka iska siibtay, waxay culimmadu leeyihiin ama nusuusta kale ay ku sharxayaan, haddee qof keligii ama sigisyaan lama gelin kara ceel.
waxay iska siibtay khamaarkii madaxa maaragtay ku xidhatay ayay iska siibtay, way ku xidhay, qofkii bay ku xidhay, kadibna ceelkii bay gelisay, way biyay ku soo qaaday, sidaasi aygii ku waraabisay. macnaheedu qofkeedii oo lugaha ku qabtay bay siibtay, khamaarkii madaxa ugu dubnaayo fasaleetigana way iska soo siibtay, way ku xidhay. halka waxaad ka garanaysaa ceelku inuusan aad u dheerayn, yani maarata sigsiyaantaas iyo masarkii ama fasaleetigii madaxa ugu dubnaa ayay intay ku xidha bay ceelkii gelisay, way ku soo qaaday. dabcan muuqu ama qofku shay adagoo biyo celiye ayuu ahaa, sidii bay aygii ku waraabisay ilaa uu ka dhergo oo oonkii wixii uu ka baxo. rabbulcaalamiin fagufira laha bihi, sidaasa loogu dembi dhaafay. waxaan rabaa inaan idhahdo ikhwatii fi llaahi, waxaanu ka hadlayna alxisaanu ila aducafaa walmasaakiin walfuqaraa. oo xayawaanaadka ugu liita naag jirkeeda iibsato oo dunuubta waaweyn ku jirta dembi ka mida, ixsaanay u samaysay iyo naxariisay u naxariisatay haddii loogu dembi dhaafay oo dembigii weynaa ee kabiirada ah loogu dhaafay, famaa baaluka maxaad u malayn walaal muslima oo abaar hayso, oo baahan, oo gaajo hayso, oo ramadaanna uu ku yimid, maxaad u malayn haddaad gaajo ka quudisi, oon haye aad maaragtay ka waraabisi, ixsaan aad u samaysid, maxaad u malayn? famaa baaluka maxaad u malayn agoon aabbihii waayey haddaad maaragtay kafaalo qaadi? famaa baaluka maxaad u malayn cunug hooyadii ay ka dhimatay oo raje ah, ixsaan haddaad u samaysi? famaa baaluka maxaad u malayn qof waayeel ah oo da-a, cid maaragtay u qumta hawlihiisa aana jirin, ixsaan haddaad u samaysi maxaad u malayn? famaa baaluka wahaakada. weligaaba tiri meel oomana ah ceel haddaad ka qodi maxaad u malayn? meel jahligu ku habsaday taxfiidu qur'aan haddaad ka samaysay maxaad u malayn? meel aadaanka ilaahay uusan ka dhawaaqin, masjidii meel isugu yimaadana aana jirin, masjid haddaad ka dhistay maxaad u malayn? wahaakada. meel caafimaad darra hayso dadku, isbitaal haddaad oga dhistay maxaad u malayn? weligaaba tiri. marka ixsaanku iyo wanaagu qofka dumarkaa oo dembigaa weyn ku jirtay, markii xayawaankaas ay u naxariisatay baa rabbulcaalamiin asna u naxariistay oo dembigeedii maaragtay ilaahay u dhaafay. culimmadu waxay leeyihiin xadiidka waxaa lagu sheegay 3 umuurood oo taafih oona qiimo lahayn. kow, waxaa ka mid a qofkan dumarka oo saaxibatu dembi ahayd, macaasi ku jirtay, jirkeeda iibsanaysay, ficil aad iyo aad u foolxun ku jirtay, qiimo ma leh. taa waa qodob wey. waxaa kaloo lagu sheegay xayawaanaadka ilaahay oo abuura xayawaanka ugu liitay oo ay ah ayaa lagu sheegay. waxaa kaloo lagu sheegay aalada ay wax ku waraabisay, khuf buu ahaa, waxyaaba lagu hallagashadu ah oon qiimo lahayn. 3daa arrimood baa lagu sheegay xadiidka. haddana maca daalika camalku wuu yar yahay. inay khuf biyo ku soo qaado ayga ku waraabisa camal yar wey, laakiin xajmiga uu leeyahay iyo wuxuu sabab ugu noqday shay weyn wey. halka waxaanu ka qaadanaynaa cibradu inaad camal farabadaan qabati maho. cibradu waa inuu camalkaadu tayo leh. naagtaas wax markaa ku xumbaar raxmadun qalbigeeda gale mooyaane wax hadda xadiidka ka muuqdo oo naagta ku xumbaarayay oo maadi iyo adduunya aad ka heshi ama wax kale aad ka heshi ma jirin. raxmadun qalbigeeda ilaahay ku riday oo xayawaanka ayga ee ooman ay u naxariisatay unbaa ka muuqda. naxariista daacadnimadka ka ah ayuu ilaahay ugu dambi dhaafay. idan camalku tayo ayaa la rabaa, ee cibradu ma aho inuu wax badan camalkaadu noqdo, ee camalkaadu waa inuu ikhlaas ilaahay darteed u samaysi, quality iyo tayana waa inuu leeyahay. sidaasuu camalku qiimo badan ku yeeshaa. saa darteed baa inagii salafka waxaa noo dhexeeya camal farabadaan oo ay la iman jireen ma ahayn. camalkoodu camal wuxuu ahaa tayo iyo quality leba ayuu ahaa. camalka yarkay samaynayaan ilaahay dartii ayay u samayn jireen, niya khaalisa, daacadnimo iyo mutaabacada nabiga ku dayan jireen. walidaalika saa darteed baa ayagoo nool in badan oo ka mida oo ardada dusheeda ku socdaan ayaa janno loogu bishaareeyey. ma sahlano adigoo nool oo socdo in janno lagugu bishaareeyo. waa quluubtaada waxa ku jiro daacadnimadka iyo mutaabacada nabiga aad ku dayanaysay iyo camalka aad samaynaysay tayadiisa wey. idan risaaladan raba inaan soo gudbiya ikhwatii filaahi waxay tahay, war naagtaa jirkeeda iibinaysay oo xumaydoo camalka macaasida zinada ku jirtay, ay xayawaan ah oo liita oo oon haya, markay u naxariisatay ayuu rabbulcaalamiin u naxariistay.
famaa baaluna maxaad u malayn qof muslima oo qaraabadaa ah oo ehelkaada ah oo baahanood quudisay oomanood biyo a siisay wuxuu u baahnaa aad ka caawisay agoon aad kafaalo qaaday wahaakada. idan way kasii daran tahay way kasii daran tahay. halka waxaanu ka qaadanaynaa raxmadda oo loo naxariisto, loo qalbi nuglaado inta tabarta yar, hataa xayawaanaadna ha ahaadeene rab waxyaabaha raxmadda ilaahay soo jiida iyo makfirada ilaahay iyo dembi dhaafkiisa soo jiida, ilaahay subxaanahu watacaala ridlihiisa soo jiida inay tahay. idan ikhwatii filahi, naftaydii naftiinaba waxaan u dardaarmahayaa inaan had iyo jeer ixsaanka oo waxyaabaha ugu qiimo badan wey, inaan ixsaanka ilaalino. macnaheedu ma aho bisha ramadaan waxaa la sameeyo o dhan inay sadaqo unay tahay iyo ixsaanku qayb ka mida wey. cibaadaadkaadii kale, xuquuqdii adiga ilaahay idiin dhexaysay oo ilaahay uu kugu lahaa, oo salaadihii cibaadadooda si fiican loo guto, soonkaoo la ilaaliyo, sadaqadaasoo la bixiyo, ixsaankaoo la sameeyo, wahaakada. alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar, yani dadka oo wanaagga la amro, xumaatadan laga reebo, cidda maarata xumaatada ku jirto gacanta laga qabto, dulmiga iyo xadgudubka oo laiska ilaaliyo. giddi waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa waxyaabaha ramadaankaada iyo ajirkaada kobcinhaya wey. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tuso, naguna irsaaqo xaqa raacitaankiisa. idan bishan waa bil barakaysan. ikhwatii filaahi, qof kastow waxaa la yihahdaa af soomaaliga mahmaayaalka waxaa kamid ahaa, inkastoo laga yaabo inay iqliim ay khaas ku tahay, uurgeelninba wuxuu gashaduu ka maalaa. bimacnaa xoolahaada haddaad soo daajisati oo wax fiican aad soo siisi, caano fiican baad ka maalaysa. idan nin walbaba wuxuu akoonka ku shubto unbuu aakhira u baxsanaya. ninka kale akoonkiisa looga soo saari wax ma jirto. nin kasta oo akoonka waxaad ku ridatay baa lagu soo saaraya. idan akoonkeena aakhiro aanu ku dadaalo, aanu wax badan aanu ku ridano. ilaahay subxaanahu watacaalana hana waafajiya xaqa. xadiidkaas maanta wuxuu u dambeeyaa mawduuceeni alixsaanu ila ducafaa walmasaakiin ayuu u dambeeya insha allahu tacaala. qaybo kale ayaanu u gudbi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. hal mar baa xadiidka lafdigiisa ku celinaya. alxadiidu 687 can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala الnabiyu salى allahu alayh wasalam baynama kalbun yudiifu birakiyatin kaada yaqtulhu اlcadashu id ra'atu bagyun min bagaya bani israa'iila fanazacat muuqaha fasaqatu fagufira laha bihi rawahu الbukhaariy wa muslim. hada wsala allahu calى nabiyina muxamadi wcalى alihi wasaxbihi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.